say markaasi khilaafka xildhibaanada golaha shacabka ay ku kala qaybsameen iyo waliba mooshinkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee xilka qaadiska ka dhanka ahaa halkii uu ku dambeeyay ayaan barnaamijka idin ku soo gudbin doonaa oo markaasi waxa marti stuudiyaha imika inoogu ah oo igula sugan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga howlaha guud iyo gaadiidka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa kale oo idin soo gudbin doonaa intuu barnaamijka soconayo hadii Allah awood laga helo munaasabad maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay taa oo markaasi dhalinyarada taa oo markaasi looga hadlayay guurka markaasi lagu qasbo dumarka waxa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ku jiraan culimo iyo dhalinyaro intuba waxaan idin soo gudbin doonaa munaasabadaasi khudbadihii laga jeediyay oo markaasi ahayd mid tababar si gaar ah loogu siinayay dhalinyarada si markaasi loo yareeyo guurka qasabka ah ee markaasi haweenka loo geysto waxa kale oo eegi doonaa wiil dhalinyaro ah oo ku dhaawacmay mid kamid ah qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo xaalad caafimaad dibadda loogu qaaday isla markaasina munaasabad sugotina Muqdisho loogu sameeyay qodobadaasi wixii soo kordhayaan dabcan ku eegi doonaa barnaamijka Cabdiraxiin Xuseen Xasan Caylaaba ayaa farsameynaya Faarax Maxamed Aadan xagga kaamirada iyo barnaamijka inoo joogay u diyaar garooba gudagalka barnaamijka waa tahay daawadayaal waa maalinimo markaasi talaado ah taariikhduna ay ku astaysan tahay 12 bisha 12 ee December sanadka sii dhamaanaya 2018 barnaamijka waxaan ku bilaabeynaa khilaafka xildhibaanada golaha shacabka oo ay markaasi ku kala qaybsameen iyo mooshinkii madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xiisadda golaha baarlamaanka halka ay ku dhameysay xildhibaan Cabdi Fataax Ismaaciil Daahir ayaa barnaamijka marti inoo ah xildhibaan marka hore ku soo dhawow telefishinka Somali Cable marka xigtase warar soo baxaya sheegaya in mooshinkii madaxweynaha jamhuuriyadda laga keenay uu buray war qoraal uu soo saaray xogayaha guud golaha shacabka ayaa sidaas lagu sheegay balka waran wararkaas maxaa kala socotaa waxa ka jira bismillaah adiga iyo daawadayaasha waan salaamayaa way jirtaa waraaqda uu soo saaray xogayaha guud ee golaha shacabka oo sheegaysa in mooshinkii buray mooshinka waxyaalaha uu ku baraayay waa la yaqaanaayo dastuurkay ku caddahay xeerhoosaadkana way ku caddahay moshinku ma burin sidiisii weeye gudoomiyaha golaha shacabka qabtay habraaci rasmiga ah waa la raacay gudoomiyaha hortiisa iyo xoghayaha ayaa lagu horjeegareeyay xoghayuhu isaga tiriyay codadka oo maartay waan wada tirino horteedan maartay lagu tiriyay koobi buu kala baxay koobiga waxay ahayd in la dhigo iyo originalka waxay ahayd in la dhigo xafiiska xogayaha guudna waxa ka reeban in uu furo galka mooshinka ay ku jiraan saxiixyadiisu inta laga horgeynayo golaha shacabka oo halka magacyada laga hor akhrin doono halkaana mooshinka doodiisu ay ka bilaabmi doonto marka waaba sharci darro inuu furo xoghayo xataa hadii uu furay xogayaha kaliya waxa weeye inuu hayo xogtaas ilaa inta laga horgeynayo golaha shacabka waa gartay furistiisa hadda xaqiiqo u baahayna laakiin hadii waxa la sheegayaa markii hore xildhibaanada in 29 xildhibaan ay gaarayeen laakiin xildhibaano kale intoo ilaa 14 oo iyaguna magacyadooda liiska xildhibaanada mooshinka gudbiyo ku jiray lagaga been abuurtay marka hadii 29 kaas ay jirto laga jaro soo mooshinka sida kuma buray ma sidiisaba cadeyn looma hayo ma aha cadeynta markii la dhiibay xogayuhu isaga ku dul saxnaa saxiixiisa ku dul qoray una malayn maayo in xogayuhu arintu ay xagga xogayaha ka socoto xogayaha sida qof kasta oo kale oo qaranka u shaqeeyo civil servant adeega qaran ah xogayuhu horta waa inuu isla fahmo xogayuhu siyaasi ma aha doorka uu baarlamaanka ku leeyahay waa door la mid ah halka DG-yada ay wasaaradaha ka joogaan marka xogayaha iyo DG-yada iyo saraakiisha dawladda ay ahayd inay ka madax banaanadaan siyaasadaba nidaamka hadda jira ma ixtiraamo waxay u nugul yihiin culaysyada siyaasadeed ee ka imanaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka waad garan kartaa qof qaranka u shaqeeyo cadaadis lagu saaray inuu saxeex dul saaro waxaan sax ahayn markii ugu horeysay ay dhacdo maaha marka cadeynteedu waa la hayaa laakiin waxaan dareensanahay in state-kii uu noqday ama dawladnimada ay noqotay mid si gaar ah loogu shaqeysto qof iyo laba qof ay sida ay iyagu rabaan ugu takrifalaan awoodda dalka taasina waa sababtay marka hore in mooshinka laga keeno madaxweynaha laakiin xildhibaano hadlaya jiro dhahay anaga magacyadeena waa laga been abuurtay mooshin maana madaxweynaha ka gudbinin laakiin liiska waa lagu buuxsaday kuwaas hadlaya iyagu marka ma beento bay noqonaysaa aniga intaan ka warqabo
xildhibaan kasta oo mooshin ka saxeexay isagoo maankiisa iyo miyirkiisa qabo mooshin ka saxeexay cid la qasb abuuri lahaa cid la masabidi lahaana ma joogno oo qof joogade lama masabidi karo lagamana been abuuri karo maaha markii ugu horeysay ee xildhibaano inta ay mooshin saxeexeen haddana isla iyagii ka hadlay oo mooshinka saxeexoodii beeniyey ama yidhi maxaa la yidhahdaa warkii naloo sheegay mooshinka nalooga sheegay baa qaldanaayo si qaldan baan u saxeexnay ma aha waa wax la yaqaano cadaadis siyaasadeed ku yimaado oo Soomaaliya qofka marka la yiraahdo wixii ehelkaaga ku jiray shaqaale ahaa waxa laga soo eriyaa dhamaantood dawladda waxa laga yaabaa inuu u nuglaado culaysyada noocaas laakiin annagu danta qarankaanu ka shaqeynaa u nuglaan mayno culays kasta oo nala saaro xataa haddii ku jirto in nafteeda loo geynayo inaan raacno dastuurka iyo qarannimada oo ummadda Soomaaliyeed ka difaacno in dalkooda lagu wareejiyo si yaroo dhib yar gobonimadii aabayaashay iyo awoowayaashay u soo dagaalameen in si dhib yar loo wareejiyo oo aan iska weyno maabka adduunka anagu geeri baan ka xignaa mana aqbali karno dabcan xildhibaan Cabdifataax xildhibaanada ishaag hadda gudbiyay mooshinka waxaa la socotaa in barnaamijyo shalayto ay dhaceen oo lagaga soo horjeedo mooshinkan hadda madaxweynaha ka gudbiseen marka waxa shacabku aysan arkin oo adagii muuqdo maxaa waaye oo aad doonaysaan inaad madaxweynaha xilka kaga qaadaan xilkiisa kaga qaadaan shacabku way ka warqabaan ummadda Soomaaliyeed dabcan waan ka xog badanay shacabku anagu dawladnimadii Soomaaliyeed baan uga dhownahay shacabka shacabkuna way ka warqabaan wararka ah sida dastuurka loogu tumanayo maaha warar anaga kaliya nagu kooban shacabku marka dastuurka lagu hortumanayo markhaati ka yihiin habdhaqanka dawladda ah in la soo abaabulo dad la soo siiyo lacag yar oo laga dhigo inay ku mudaharaadayaan mooshinkana waa habdhaqan soo jiray oo lagu yaqaano Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu dad lacag siiyo oo dawlad ay u yiraahdo sidii wax taageero u muujinaya dibadda loogu soo baxo habdhaqanka waan cambaareynaa lacagta ummadda Soomaaliyeed lagu khasaarinayo boqolaal wiil oo yaryar oo dibadaha ku qaata kumanaan dollar si Facebook ay uga shaqeeyaan taageerada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa u baahan lacagta ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee difaaca ugu jiray inay sharafteena iyo midnimada dalkeena ay dhowraan ee maalin walba ku dhimanaya iyagoo la dagaalamaya argagixisay iyo xoogag raba inay dawladnimadana meesha ka saaraan marka waxaanu leenahay ha lagu soo noqdo xidnaafka sharciga lacagta ummadda Soomaaliyeed aan lagu qasaarinin meel aan munaasab ahayn waa gartay laakiin dadka shacabka iyo warar qaar sheegaya iyaguna in mooshinka aad madaxweynaha ka keenteen hadda dalal kale ay ka dambeeyaan oo adiga naftirkiina lacagada ugu soo siinay sida la sheegay wararkaas waxa ka jira iyaguna wararka wax ka jira ma jiraan mooshinkan waa mooshin ka dhashay habdhaqanka madaxweynaha baalmarsan sharciga iyo dastuurka ma jiro cid dabada ka riixaysa haddii ay jirto cid dawlad shisheeye ku xidhan oo lacag aan idin accountable u ahayn bixisa madaxweynaha loogu keenaa 3 milyan iyo bar bil kasta dawlad shisheeye aynu ognahay ay ku bixisaa in lacag loogu keeno lacagtana waxa loo isticmaalaa cadaadisyo siyaasadeed in lagu saaro maamul goboleedyada waxa loo isticmaalaa cadaadisyo siyaasadeed in lagu saaro xildhibaanada qaranka ee la soo doortay marka waa la yaqaanaa cidda lacagta shisheeye qaadata iyo cidda dalka ku maamusha lacag shisheeye waxa xilligan idinku qasbay inaad madaxweynaha jamhuuriyadda aad ka keentaan mooshin macnaha maxaa idinku qasbay hadda adika aad ku doodaysaan oo aad leedihiin madaxweynaha sababtaas baan kaga keenay mooshinka maxay tahay madaxweynaha dhowr sababood oo aan loogu dul qaadan karin inuu dalka madax ka sii ahaado ayaa nagu kaliftay inuu mooshinka ka keeno midda koowaad waxa weeye khiyaano qaran waanu aaminsannahay inuu khatar ku yahay qarannimada iyo khiyaanada qaran maxay tahay waxa uu khatar ku yahay in dalkani uu sii ahaado dal madax bannaan wuxuu u shaqeynayaa danaha wadamo shisheeye oo doonaya in dadka Soomaaliyeed ay ka noqdaan qabiil kamida qabaa'ilka gobolka degan halka ay hadda ka yihiin qaran madax bannaan oo United Nations-ka ku jira halka aynu hadda laba dawladood oo Soomaaliyeed oo dad Soomaali ay madax ka yihiin in kastoo mid kamida dawladaha dad kale la degan yihiin Cabdifataax warkaas hadda maxaa ku xaqiijinaysaa marka in qarannimada Soomaaliya la rabo in
markaasi dad la hoosgeeyo maxaa ku cadaynaysaa wararka waxaa cadeeyay madaxdii kala qayb gashay wada hadallada looga xaajoonayo in madax banaanideena laga tanaasulo oo meel kale loo raro marka anagu uma baahnin madaxweynaha waxaanu ka dalbanay inuu heshiiska keeno oo uu nala wadaago intaanaan ka keenin xilka qaadista waxaa jiray mooshin aan ku dhamaystiray waxaa jiray mooshin aanu keenay baarlamaanka oo aan ku dalbanaynay madaxweynuhu inuu maartay xukuumaddiisa soo dirsado ama ra'iisul wasaare noo yimaado ama doodba la furo lagaga doodayo iyana ay xukuumadduna cid soo dirsato lagaga doodayo xiriirka ay Soomaaliya la sameynayso wadamada dibadda gaar ahaanna waxaan si gaar ah u xusnay heshiisyadii uu la galay madaxweynuhu uu la galay dawladaha Ethiopia iyo Eritrea waxaan rabnay in faahfaahin dheeraad ah uu ka bixiyo madaxweynuhu arrintaa uu ka dhagaxdeeyay taasina waxay noo cadeysay oo ay noo cadeysay inay wax ka jiraan sheegashooyinkii ay dalalka kale sheegeen ujeedada laga leeyahay hadda waqtigan xaadirka in gobolku uu galo wada hadallo siyaasadeed iyo qaar dhaqaale oo lagu mideynayo marka taas cadeyninta ka badan oo anagu aanu heli kareynay ma jirin mar haddii ay arrintaasi jirto khatar ay gashay madax banaanidii iyo gobonnimadii ummadda Soomaaliyeedna war aan ahayn in madaxweynaha mooshin laga keenaa ma yaalo si qarankan loogu dhiibo qof ummadda u adeegay aan dad shisheeya u adeegin maanta xarunta Villa Hargeysa ayaa ka soo gasheen live oo saxaafadda tawani la diiday oo telefoonadiina live ka soo gashay maanta maxaa ka hadlaysaa waqtigaas taasi horta waxay qayb ka tahay ku xadgudubka xorriyadda shakhsiga ah iyo xorriyadda siyaasadeed ee xaq u leeyihiin xildhibaanadu in ay ku shiri karaan meesha ay rabaan in ay xafiisyadooda aniga xafiiskayga wuxuu ku yaalaa Villa Hargeysa maanta way ii suurageli weyday leydka inta dhowr jeer baa leydkana laga damiyay markii ay u suurageli weyday ciidamadu inay naga hor istaagaan oo aanu galnay Villa Hargeysa gudaheedii ciidamadii madaxtooyada ilaalinaya amarka ka haystay madaxweynaha lagu amray inaanay noo soo sii deynin gudaha Villa Hargeysa markii ay noo suura gashay dood badan ka bacdi inaanu gudaha galno waxay gaadhay in laga jaro leydkii oo garan karto jawiga maanta aad buu kululaa laakiin waanu u dhabar adeegnay waxaa kamid oo kale in saxaafadiina loo diiday inay noo soo gasho ra'yigeega si aan ummadda Soomaaliyeed u gaarsiino taasina way dhacday waxay ka liftay inaanu mobiiladayada anagu iskaga soo duubno war saxaafadeedka aan ugu talagalay inaanu meesha ka soo saarno waxyaalaha ka hadlaynay saddex qodob baa ugu waaweynaa qodobka koowaad wuxuu ahaa inaanu cabirno oo aanu cambaarayno ra'yigeega ku saabsan inaanu muujino ra'yigeega ku saabsan falalkii gudoomiyaha koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye xigeenka labaad ay waraaqihii ay soo saareen ay ku sheegayeen ay amarada ku bixinayeen inaan lagu shiri karin hoolka Villa Hargeysa inaan labada dhinac bay ahayd oo xildhibaanada guud ahaanba khilaafsan inaysan ku shiri karin Villa Hargeysa marka soo ma ahayn in haddii amarkii soo baxay labada dhinac labada xildhibaanada hadda kala qaybsan oo qayb kamid adiga ka ma xaqba uma laha horta marka hore qofka soo saaray waraaqdu inuu xaq u leeyahay gudoomiye ku-xigeenada waa la yaqaanaa waxa ugu qoran dastuurka iyo waxa ugu qoran xeer hoosaadkaba xaqba uma laha inay ka arimiyaan golaha shacabka iyadoo oo gudoomiyihii golaha shacabku waa xaadir yahay oo joogo marka horta validity-ga yani waxa weeye inay u banaan tahay inay ka hadlaan ayaanu maanta meesha kaga hadalay waxa kalena kaga hadalay qaabka ay u qorneyd waraaqdu ay u eekayd wadankan yani inuu ku jiro nidaam dictatorship waxaanu dareemaynay inay qaab aad u qaldan tahay waxaanu dareemaynay in ay xukuumaddu waraaqda ka dhex hadlaysay oo aanay u madax banaaneyn gudoomiyayaashii qoray go-aanadooda aanay u madax banaaneyn marka waraaqda waanu cambaareynay waxa kaloo aanu rabnay inaanu ummadda Soomaaliyeed la wadaagno waraaq labaad oo ka soo baxday xoghayaha guud oo sheegaysa in mooshinkii buritaana waxaan rabnay inaanu beenino ummadda Soomaaliyeed u sheegno in cadaadis lagu hayo qof kasta oo madaxa oo civil servant oo adeega bulsho ah oo ay ahayd inuu ka madax banaanaado siyaasadda iyo siyaasiyiinta isku haya in cadaadis lagu hayo dawladnimadii Soomaaliyeedna ay kharibayso waraaqaha isburinayaana ay ka soo baxaan waraaqdii shalay saxiixiisa uu ku qornaayo mooshinka uu ku qabtay inay ka daba yimaadaan waraaqo kale oo la sheegayo in uu mooshinkii buray iyadoo oo aanu burino gudoomiyihii golaha shacabka uu mooshinkii weli la yaalo
taana waanu kaga hadalay waxa kaloona kaga hadalay cambaarayn ku aadan habdhaqanka dawladda ee ku aadan gudoomiyaha golaha shacabka oo sida aynu wada ogsoonayba qofka labaad ee maamuus ahaan dalkan ugu sareeya in loola dhaqmo si ka baxsan anshaxa dawladnimo oo sida la wada ogyahayba shalay loo diiday isagii askartiisaba ilaa maanta loo diiday isagii askartiisaba in xataa raashinkii banaanka uga iman jiray ee loo soo karin jiray lagu keeni jiray meesha in loo diido oo uu soo geli waayo in si isdaba jooga marna nalka laga gooyo marna loo sii daayo waxa kaleenu cambaareynayna in loo diiday dadku isagu u baahnaa inuu la tashado ama uu muraadka ka lahaa siyaasadeed iyo dadkii isaga u baahnaaba in loo diiday inay arkaan marka taana waanu cambaareynayna oo cambaare baan kasoo saarnay ugu dambeyntii mooshinka hadda madaxweynaha aad ka keenteen dabcan xildhibaanadii golaha shacabka ayaa ugu kala qaybsamay xiisada siyaasadda dalka walwal iyo waxay geliseen iyo weliba in dadku ay imika ku dhaga taagayaan waxa ka soo cusboonaan kara iyo meesha ay ku dambeyn karto marka bal maxay kula tahay mooshinkan hadda aad keenteen iyo khilaafka haatan taagan meesha ay ku dhamaan karto moshinku haddii la ixtiraamayo dastuurka iyo xeer hoosaadka waa inuu habraaci rasmiga ahaa maraa waa in madaxweynuhu ixtiraamaa dastuurka iyo xeer hoosaadka waa in golaha shacabka uu hor yimaadayo eedeymaha uu ku eedeysan yahay inuu ummadda soomaaliyeed u caddeeyo oo wuxuu isku difaacayo uu u sheego waa inuu aqbalaa cod buu ku yimi inuu cod ku baxo waa inuu aqbalaa in villa Soomaaliya aanay ahayn villa Farmaajo villa Soomaaliya waa guri madaxtooye oo qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay muddo yar buu joogayaa muddada yar uu joogaya inuu ixtiraam iyo ku joogo isagoo dastuurka ilaalinayo oo dhowrayo shaqadiisa u gudanaya si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka oo aan ku tumanaynin xeerkii dalka iyo wixii loo igmaday marka anagu waxaan rajaynaynaa moshinku inuu ku dhamaan doono sida sharcigu uu qabo in la mariyo oo sharciga nina aanu ka weynayn madaxweynaha wuxuu madaxweyne ku yahay sharciga anaga waxaan xildhibaano ku nahay sharciga haddii ixtiraami waayo sharcigana cawaaqibka ka dhalanaya isaga mas-uul ka noqon doono كان هو داوديال حلوان عبد الفتاح إسماعيل داهر gudoomiyaha guddiga howlaha guud iyo waliba gaadiidka ee baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah xildhibaanada markaasi mooshinka ka keenay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo stuudiyaha barnaamijka Wardoon markaasi si toos ah martiina uu ahaa inagula sugnaa waa tahay daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijka Wardoon ayaa isla soo gaarnay maanta magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa lagu qabtay tababar ku saabsan ka hortagidda guurka qasabka ah ee dumarka markaasi waalidiintu ay ku qasbaan munaasabada waxa ku sugnaa oo tababarka dhalinyaradaasi lagu siinayay culimo iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhalinyarada waxaana soo qaban qaabisay isla wasaaraddaasi dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa mas'uuliyiintii goobta ka hadashay kamid ahaa agaasimaha waaxda shaqada iyo waliba tababarka ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya abwaan cali sheekh xaamud oo markaasi ka dhawaajiyay in markaasi loo baahan yahay in dhalinyarada laga wacyi geliyo isla markaasina tababaro laga siiyo iyo waalidiintuba in markaasi ay gabdhaha xilliga ay yar yihiin ku qasbaan guurka horta barnaamijkan waa barnaamij ballaaran wuxuu ku fiicnaan lahaa barnaamijkan inay maanta waalidiinta halka fadhiyaan aabayaashii iyo hooyooyinkii inay halka fadhiyaan ayuu aad ugu qurux badnaan lahaa waayo waxa qasba ama wax dedejiya waa waalidka laakiin dadkii la qasbaayay hadda la keen meeshan dadkii la qasbaayay ama gabar ahaato ama wiil ahaato ayaa halka fadhiyay marka waa ka rahalgelnaa dadkii la rabay in loo sheego barnaamijkan ma loo yeerin laakiin insha Allah barnaamij xiga loogu yeeri doonaa laakiin idinka fariin baa idin faraynaa ka wasaarad ahaan inaad ka wacyi gelisaan hooyada iyo aabaha marka hore ayaga aad ka bilowdid oo xaqiiqada aad taabsisid qasab maan adiga inay kugu timaado ha sugin adigu wiil aad keen doontid ma ahayn laakiin balshad inaad tiraahdo hooyo iyo aab inaad i qasabtid ma ahan kali gabadha kali la qasbaayo ma wiilka laga yaaba gabar uu sarabin in lagu qasbo gabar uu san kaysan leeyahay gabadha wariyada la shay guurso gabar kale ma guursanayso wiilka naftiisa ku imaanaysa ma ahan gabadha kaliya ma ama asagoo wax barasho raba inuu sii wato in la yiraahdo wax barashadaadi waxa ma aqaan waxa dhisay raba inaan arkay guurso in la yiraahdo
marka labada dhan bay ku imaanaysaa marka anaga labada dhan baan isku soo qaadaynaa in waalidiinta laga dhaadhiciyo ama habaryarta ama eedooyinka ama yeeyada ama nooc rabta noqoto in qof waliba mas'uul uu ka qaado inaanu fiicnayn guurka qasabka ama kan degdega labadaba sababtoo ah qasabka waa la soo arkay inkastoo Soomaalidii hore ay ku dhaqmi jirtay hadda wuu yaraanayaa dalku wuu ku yaraanayaa runtii hadaan fiirisaan wuu yaraanayaa maanta aabayaasha wax bixiya waa wax aniga ila eg iyo wax iga sii yar waay sida macnaha culimada ay sheegayso kale dadkii hore waa yeelka ahaa waa awooyaal waay anu hadda hooyada joogto marka gabadheeda bixinaa le laakiin sida ayada tiraahdo macnaha ma dhihi karto waxaan leeyahay hooyo laga soo tagay xilligaaga adoo hadii lagu qasbay maanta gabadheeda lama qasbay waa dhihi karaa laakiin aniga hadda waxba ogeyn oo iraado hooyo bal saayela gabadhi way qaan gaartay war midka soo qabo adeerka macnaha adeerka u tahay ku dar waayahay aan dhaho midaas waa mid la diiday marka waxaan rabaa gabdhaha inaan qiyaar gelino waalidiinta in loo sheego inta aqoonta leh sida aniga kala ah waalidiintaas ma u baahna ayaga aqoonti leh ayaga ba fahmayo wacyiga iyo garaadka marka ma dhacayso laakiin inta kale oo isleedihiin ama miigi dhaqankii haystaan ku dhagan yihiin ila waa la yaqaanin walba gurigiisa u yaqaana qofkaas wacyigelinta gaarsi laakiin aniga waxaan isleeyahay boqolkiiba 75 ama 80 ma aan gaarsiiyo Soomaalida wax ma qasabta hadda sababta anigu gogol badan aan ka qayb galaa anaa wax bixiyay dad baa wax bixiyay goobjoog u ahaa idigan marqaata agatiin gabar saaxiibtaada la qasbaayo waa hal iyo labo marka sidaa darteed yaan annaga naftirkeena ka dhigin sida hadda uu sheekh sheegay wadamada Yemenka oo kale iyo meelahaas waa jiraan macnaha dhaqaale inay ku xisaabtaan Sacuudiga laga sheegay qofka dusan dhaqaale haysan gabar ma guursan karaba wadamo waxaa jiro gabadha ninka guursato gabadha haday lacag lahayn nin ma guursan karto hindiyo kale laga sheegay waa inay gabadha maal leedahay gabadha la guursan ay waa inay maal leedahay marka alxamdulillah rabbil alamin annaga wadankeena noocaas ma dhaqankii miiga noogu dhib badnaa oo hadda gabdhahan ay ka sheekeynayeen in gabar lagu bedesho macnaha laba reer macnaha lagu dhiig joojiyo in qof lala jeclaado mesela anigu wiilka aan adeerku ahay gabadheedu waa la jeclaan karaa laakiin gabadheeda hadii san rabin inaan ku qasbinaa la rabaa runtii anigu simaha waaxda shaqada iyo waliba tababarada ee wasaaradda dhalinyarada xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlayay tababar maanta markaasi ku saabsanaa ka hortagga guurka markaasi qasabka ah ee dhalinyarada waalidiintu ay ku qasbaan loogaga hadlayay dhalinyaro fara badan ayaa ka soo qayb gashay tababarkaasi ka qayb qaadatay guud ahaan daawadayaal barnaamijka intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeeyno waqtiga oo inoo saamaxi waayay warar kale oo inoo dhanaa idiin soo gudbin lahayn waxaad dib kaga heli kartaan ama aad ka daawan kartaan baraha aan ku leenahay ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook YouTube iyo waliba wararkeena dambe oo ugu horeeya kan shanta xilliga geeska Afrika idinku soo wajahan guud ahaan barnaamijkii waanageynta Cabdiraxmaan Xuseen Xasan Caylaba ayaan xagga farsamada kaga mahad celinayaa kaamirada Faarax Maxamed Aadan Faarax Yuka ayuu ahaa anigoo Cabdiqaadir Umar Cabdullana barnaamijku idin la socodsiinayay tan inta ku kulmi doono berita saddexda galabnimo xilliga geeska Afrika insha Allah nabadgelyo